بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم walaalahay meel kasta joogtaan. waa idin salaam kadib ina caafimaad qabtaan aan rajeynaya maasha allah tabaarakallah. maalmahan waa ka mashquulo almost bil wuxuu masuul gelin fiidiyoogana almost dhowr weeks uu duuban yahay. waa ka mashquulo isku soo noqod wanaagsan oo qeyr qaba insha allah iyo ka faa'iideysi wacan. maanta waxaan idin wadaa maasha allah tabaarakallah harbal amba caashaab amba geedo oo timaha u fiican oo insha allah ka faa'iidi doontaan kulligiinba hadduu ilaahay yiraahdo. digsigaasaan soo qaatay waxaan kusoo shubay fiyoorahaasaan kusoo shubtay insha allah hadduu ilaahay yiraahdo. fiyoorahaana dukaanyada carabta aa ka heli kartaan karkadeeda la dhahaa hadduu ilaahay yiraahdo. dukaanka oo carabta amba ma aqaana haddii wadamo kaleetana ay isticmaalaan hadduu ilaahay yiraahdo. iyo waxaan kaleeto kusoo shubta isagana dhagayaro insha allah. waxaan kaleeto kusoo daray tuunta hal xabaan kusoo darsaday insha allah. haddana waxaan kaleeto ku shuba waa biyo hadduu ilaahay yiraahdo. timaha cuncun haddaa leedahay maasha allah tabaarakallah amba timaha ay agwalkaaga jiraan amba timaha ay kaa jajabayaan hadduu ilaahay ramaaskan wuu ku anfici doonaa. timaha oo xidhna aan samayn doona insha allah. biyaan ku qasi doonana waxaan ka samayn doonaa caashaabtan amba harbalkan saa u aragtaan hadduu ilaahay yiraahdo. wax iska basiid waaye laakiin kalar qurux badan uu timaha kugu siin doonaa haddaa jeceshaa kalarada dabiiciga ah oo maaragtay oo xidhnaha maaragtay aad rabtid inuu timahaada uu qabto oo kalar qurux badan uu ku siiyo insha allah. ka faa'iideyso oo ku qaso hadduu ilaahay yiraahdo. caashaabtan waa ka faa'iidi doontaa timaha hadday kaa jajabayaan timaha haddii maaragtay daciifkaa yihiin madax cuncun haddaa leedahay insha allah. dhagayaraha iyo tuunta iyo waxaan isku daray iyo fiyoorahaas insha allah. dabkan soo saaraysaa u aragtaan maasha allah tabaarakallah. waan soo shiiday fiideo duboona waa la ilaaba 10 mar cod kala tuurooya hadda maasha allah tabaarakallah. haddana waxaan sameynaya waa soo shiiday haddana qashinka dhan aan rabaa inaan ka miiro because waxyaabaha ku jiro fawaa'idkana saan u helo. fiyoorihii dhan waa soo shiiday iyo tuuntii iyo dhagayarihii waa isku soo shiiday insha allah. sababta u shiidan waxay tahay waxaan rabaa inuu maaragtay uu noqdo maaragtay rasiin maaragtay qoyaanka uu bibiyo noqonin kalarka iyo fawaa'idkii oo dhan aan ka helo saas darteed u shiiday insha allah. waana ka faa'iidi doontaan boobay hadduu ilaahay yiraahdo. ka warkeenaysa week one time haddaa marsatid maasha allah oo dadka jecel tahay xidhnaha insha allah oo xiiseeyay hadduu ilaahay yiraahdo. isticmaal ay caashaab ah haysatid karkadeedkana kalarka maasha allah tabaarakallah uu kaaga dhigi doono hadduu ilaahay yiraahdo. waa soo shaqshaqay qashinka ku jira haddaa ku darsatid ma fiicno saa u ogtihiinba maaragtay taas waa la wada fahmaya insha allah. hadhow maaragtay timaha saa uga bixisid waxay noqonaysaa easy ma ahan dhib keliyay noqonaysaa. marka saas darteed in la iska shaqshaqaa fiican wixii maaragtay oo timo la marinayo dhan xataa xidhnayaasha aan maaragtay asliga ahayn amba maaragtay qashinka ku badan yahay hadduu kugu soo aado inaad iska shaqshaqdid waay. hadda xidhnaha timaha loogu talagala waaye oo asli ah oo kuwa bacaysan ah hal xabo qashina male. laakiin case haddaa haysatid xidhnayaasha maaragtay oo la beego oo kaleeto waa iska shaqshaqaysaa insha allah. suu maaragtay hadhow u noqdo best oo maaragtay smooth ah oo timahaadana hadhow maaragtay uun ku dhibeynin markaa iska dhaqaysid hadduu ilaahay yiraahdo. qiyaastan inta adiga aad rabtid ay ku xiran tahay. marka insha allah waa isku soo qasayaa hadduu ilaahay yiraahdo. kadibna waa isla arki doonaa insha allah waxyaabaha kaleeto. xidhnaha sidiisa burbuur uu yeeshaa marka la qasaayo marka waqti yar inaad gelisid aan u baahan tahay insha allah. ood qasid biyahana aad tartiib ku dartid saa u jeedaanba hadda waa ku daray intii ugu dambeysay. kadibna waxaan ku qasi doonaa makiinad wax kaleeto oo ku dari doonana kadibna waxyaabaha kaleeto oo ku dari doono waa isla arki doonaa walaalahay. daawasho wacan. marka si fiican haddaan u qasin haddana waxaan samayn doonaa hadduu ilaahay yiraahdo ilaa 1 saac haddaa qamiirisid ilaa 2 saac. hadda for example oo kale habeenkii haddaa qastid oo subaxda marsatid maasha allah tabaarakallah kuu noqonaya. marka waxaa samaynaysaa ilaa 2 saac waa inuu maaragtay xidhnaha kuu qasnaado oo maaragtay aad dabooshid suu maaragtay wejiga dry uga noqonin hadduu ilaahay yiraahdo. kadibna maasha allah
kalarkiisa dhaqsiyu kuu soo baxayaa insha allah hadduu ilaahay laakiin daaqisi hore ka marisid natiijadiisa ma noqonaysa sida xinaha maaragta oo lasii qamiiriyey ama maaragta lasii qasay oo waqti qaatay hadduu ilaahay yiraahdoo intaasna waa isla fahnay haddana makiinadii aan usoo qaatay aan ku qasaya insha allah saliidan ku dari doonana waxaa waaye hadduu ilaahay yiraahdo saliid oo canabkaan ku daraya grapes oil amba sayt alcanab qofba suu u yaqaan insha allah aan ku daraya suuna maaragta hadhowna madaxa tight iga dhigin oo maaragtay oo timihii maaragta moisturize u sameynaysaa oilkii iyo xinii haddii laisku daro laakiin haddaa biyo kaligiis isku qastid madaxa tight uu kaaga dhigaya cilaanka marka cilaanka wuxuu u baahan yahay saliid insha allah in lagu daro hadduu ilaahay yiraahdo dhageerahana kuma badan dhageeraha haddii lagu badiyo dhageeraha timaha wuxuu ka dhigaa maaragtay taaga xoogaa qandaf uu ka dhigaa ilaa qofka uu u barto timihiisa qofka marka ugu horeyso u marsado dhageeraha timihiisa wuxuu ka dhigaa timo maaragta qaloon oo kaleeta inay fahanteen aan rajeynaya insha allah dadka qaarkoodna ma jeclo oo xasaasiya ku qabaan amba allergy ku qabi karaan waxyaabaha aan ku daray marka insha allah qof kasta wuxuu u shaqeynaya isagaa og inaad ka faa'iidi doontaan aan rajeynaa maaskeena xinaha saasuu diyaar ku yahay waa qamiirinaya adiga ilaa 2 saac camal ii qasnaanaya kadibna waa marsan doonaa hadduu ilaahay yiraahdo kalarkiisana maasha allah tabaarakallah uu iigu soo baxay oo saa hore usoo sheegay fiidiyowga dhowr weeks oo ii yaala hadda xinahan hadda codka aan saaray maanta oo soo daynaya insha allah last month aan duubay bishii horeetaan duubay marka waa kaasa walaalahay waa mahadsantiin daawashadaa daawateen inaa ka faa'iideen waan rajeynaa waana kaasa fiidiyowga insha allah markuu ilaahay raali ka noqdo aan idinla soo sheer garayn doonaa waana soo dadaali doonaa hadduu ilaahay yiraahdo daawashada daawateenna waa ku mahadsantihiin waxaan idin leeyahay jasaakumullah khayr 2 saacadood maaragta meel ii yaalay waa daboolay marka waa kaasaa hadda korku wuxuu ka yeeshay kalarkiisa haddaan moor ku dari lahay maaragtay karkadeedkana guduudka horaa ka arki lahaydeen laakiin hal qaanda camal aan ku darsada iskuma badanin marka daawashada daawateen walaalahay waa ku mahadsantihiin like gareey fiidiyowga adigoo mahadsan share gareey insha allah subscribe na saara jasaakumullah khayra idin leeyahay sidaan markale aan ku kulmayno fiidiyow cusub walaalahay waxaan kaaga tagayaa fii amaanillaah asalaamu calaykum